biyaha laga hadlayaa waa biyaha dalka oo dhan laakiin waxa ka bilaabaya anu Hargeysa biyuhu ma wada gaarin kuwa gaarina uma sinna imika ka soo qaado meesha la gantaalaha beebka biyaha soo mara biyo ma hesho laakiin buurta kala jeexani way heshaa sababtu waxa weeyaan gantaalaha waxa ku nool xaasaska askarta iyo dadka danyarta ah oo badan ninkii lacag haysta biyo ma waayo ka biyahani wana lacag haysanin taas waa mid tagay waxa jirta biyaha marka la gelinayo dadku beebka iga iska bixiyade beebka weyn waa laga bixiyo deecidina maalgelisay baa yaa bixisay laakiin beebka yariyada xafida loo duwayo dadkaas ka bixiya guriyahana beeb ku jira iyaga dadka leh haddana marka la gelinayo waxa laga qaadaa lacag fariisina oo fara badan qofku wuxuu cabo waxa qorta saacada sandaqada ku jira iyo kafoon ku jira mid walba saacad waxa qorto yuma laga qaadaa ay ahayd laakiin sandaqada waxa laga qaadaa marka biyo la gelinayo lacag intaas oo $100 daarta weyn fooq aan waxa laga yaabaa in laga qaado 5,000 ilaa 10,000 wax la mid ah lacagtaas meesha gasho lama garanayo madawada qaadato oo maariyada gasha khaddeeda mise meel kale ay gashaa taana in la xisaabiyo oo laga daba tago yaa loo baahan yahay ceelasha la qoday haddii la weydiiyo wakaaladda biyaha imisa ku baxay ceelka waxay ku oranayaan 200,000 riigana iyagaa leh taasoo wax la yaab leh weeyaano in loo fiirsado yay u baahan tahay anu waxaan oran lahaa wakaaladda biyuhu anigu waan ku xumaynayn cidnaba waxay noqotay meel barayfda oo cid gaari ay leedahay waa sida isbitaalka oo kaleeto group hospital oo kaleeto waa lagu shaqaystaa waxa leeyahay halala xisaabtamo wakaaladda biyaha oo lagu daba galo oo audit-ka daba galo oo dadka kan lacagta laga qaadayo interview la sameeyo hal waraysto mid walba wax laga qaaday hal weydiiyo takadi biyuhu waa qaali waxa lagu xisaabinayaa biyihii laftoodii iyo neeftii waday neeftaaba ka qaalisan biyaha haddii neeftooda ay ka taho qiimaha leedahay biyaha iska dayno hal iibiyo dee neefta taas waxaan ka baxayaa Hargeysa iyo biyaheeda dalka kaleeto waxaa la xasuustaa marka abaar dhacdo yaa leeyahaa biyoy waxay ahayd marka horeeto in ku talagal la sameeyo in laga qodo riigag iyo baliyo weyn la qodo oo dadku ay helaan meel soo tageene biyo inay helaan way biyuhu waxa weeyaan daruuriyaadka ay ka mid yihiin sida cuntada iyo hurdada iyo hooyga iyo neefta waxa leeyahay qorshaha la sameeyo wasaaradda balaaninka iyo wasaaradda biyaha labadooduba ha ka hawlgaleen in dalku siduu biyo u heli lahaa dalka oo dhami biyo lahaa haddii Hargeysa biyo wada weyday gidigeed dee dalka wada heli maayo yaa lagu hamaabeeru marka abaartu dhacdo biyo la dhaaminayaa booyaday lacag soo ururiyay war arrinta hoos loo ogaan lahaa oo biyaha dadka biyaha la deeqsiyo waa biyo way yaalin wadanka ku jiraan laakiin wuxuu baahan yahay in laga hawl galaa oo tacab la geliyaa wassalaamu calaykum